madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hiirtii hore ee Saaka ka soo ambabaxay magaalo xeebeedda Berbera ee gobolka Saaxil oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay deegaanada u dhaxeeya magaalo xeebeedda Berbera ilaa iyo magaalada Burco. bulshada jiidaha ku dhaqan ayaa si weyn u muujiyay taageerada iyo sida ay ula dhacsan yihiin hogaaminta madaxweynaha Somaliland iyo siyaasaddiisa horumarinta dalka. dadweynahan ayaa lulayay caleemo qoyan calanka jamhuuriyadda Somaliland iyo boodhar uu ku xardhan yahay sawirka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. wajiyada dadweynahan ayaa laga dheehanayay dareenkooda wadaniyadeed ee ay la garab taagan yihiin xukuumadda talada haysa iyo qorshaha ay qarankan majaraha ugu hayso. madaxweynaha Somaliland ayaa deegaanada uu maray u degay shacabka soo dhaweyntiisa u soo banbaxay isagoo dareenkooda la qaybsaday. deegaanka Qoyta shacabweyne aad u tiro badan oo xoogan ayaa iskugu soo baxay. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala hadlay isagoo bulshada uga mahadnaqay sida ay u muujiyeen wadajirka ummadda iyo isgarabtaagga xukuumadda. maanta waa maalin barakaysan, waa mawlid nabigeenna Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. waa ilaahay mahadi inaan maanta soo nimid iyadoo maalinta barakada leh ee barakaysana reer Qoyta iyo gobolka Togdheerba soo dhaweynta ballaaran ee aan loo kala harin aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa. waa ku mahadsantiin hawsha xalay ilaa shalay aad ku jirteen. hablahana aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa filayaan in guryahoodii ilaa xalay carruurtii ay beelihiyeen si ay u diyaar garoobayeen. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. madaxweynaha Somaliland ayaa ku guda jira socdaal uu ku mareeyay gobolada Saaxil iyo Togdheer. safarkan uu ugu kurgeliyay xaaladda guud ee dalka iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee xukuumaddu ay labada gobol ka wado.